kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka waxaynu idila wadaagi doonaa xog ku saabsan wadahadal dhanka qadka taleefanka oo dhexmaray madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Puntland waxyaabaha ay ka wada hadleen ee diiradda lagu saaray iyo sidoo kale madaxweyne Deni oo shuruudo adag hor dhigay in uu markaasi ka qayb galo shirka madasha wada tashiga qaran intaanu guda galin qodobadaas waxaan marka hore ka codsanayaa in muuqaalkan like saarto haddii ay tahay markii kuugu horeysayna soo booqatayna subscribe-ka noo taabato waxaa markaasi xalay ilaa maanta wada hadal uu u socdaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waxaana wada hadalkooda uu ku saabsan yahay ama diiradda lagu saaraya sidii Deni loogu qancin lahaa in uu yimaado magaalada Muqdisho kana qayb galo shirka madasha wada tashiga qaran balse xogo hoose aan helnay ayaa waxay sheegayaan in Cabdicasiis Laftagareen iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay qorsheenayaan in ay si wada jir ah ugu tagaan isla markaana fadhigiisa ay ugu tagaan madaxweynaha Puntland ayna ku qanciyaan in uu ka qayb galo shirka madasha wada tashiga qaran oo mar kale dib la isugu soo laabto iyadoo ay xusud mudan tahay in shirka uu isaga soo baxay iyo guud ahaanba magaalada Muqdisho uu isaga tagay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam haddaba Siciid Deni oo markaasi shirkan in muddo abag aan markaasi ka qayb galin ayaa wararka waxay sheegayaan in Cabdicasiis Laftagareen uu isku dayayo isaga oo wakiil ka ah Xasan Sheekh Maxamuud in uu markaasi la xiriiro isla markaana uu ka dhaadhiciyo in uu ka soo qayb galo shirka madasha wada tashiga qaran isla markaana Xasan Sheekh Maxamuud uu u wakiishay Laftagareen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhagan qodobo aad iyo aad u adag oo madaxda dowlad goboleedyada badi intooda badan ay markaasi ay sheegeen in aysan ahayn wax markaasi u qalma ama u cuntama taas oo ah in hal sano muddo kordhin ah markaasi la siiyo kadibna doorasho qof iyo cod la qabto madaxweynaha Jubbaland shirka waxyaabaha uu kaga baxay waxa kamid ahaa dhowr qodob oo ay kamid ahaayeen in doorashada markaasi dowlad goboleedyada gaar ahaan Jubbaland uu qabanayo bisha November iyo sidoo kale in shirka laga soo qaybgeliyo madaxweynayaasha Khaatumo State iyo sidoo kale Puntland haddaba Siciid Deni oo shirkan markaasi aan ka qayb galin ayaa waxa lagu soo waramayaa in qadka telefoonka uu kula xiriiray madaxweynaha Koonfur Galbeed Siciid Cabdullaahi Deni ayraade Cabdicasiis Laftagareen waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaa kamid ah sidii madaxweyne Deni shirka uga soo qayb gali lahaa isagoo Cabdicasiis Laftagareen uu isku dayay in uu ku qanciyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni sidii uga soo qayb gali lahaa shirka madasha wada tashiga qaran balse madaxweyne Deni ayaa laba shuruud oo adag ku xiray in shirka madasha wada tashiga uu ka qayb galo shuruudahaas ayaa waxa mid koobaad ay tahay in la doono madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland maadaama uu ka soo carooday shirkii madasha wada tashiga ee magaalada Muqdisho ku dhaxmarayay madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir haddaba madaxweynaha Puntland ayaa waxa shuruudiisa koowaad uu ka dhigay in madaxweynaha Jubbaland shirka lagu soo celiyo shuruudda kalena kama liidato ee uu soo hordhigay Cabdicasiis Laftagareen waxayna tahay in shirka aan lagu qaban magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka isla markaana la isla aado magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya qodobkaas ayaa loo arkaa in uu yahay midka ugu adag ee markaasi filla Soomaaliya aysan sameynaynin wax walba oo dhaca madaxweyne Deni ayaa markaasi la aaminsan yahay in uu markaasi hadalkaas ula dalnay yahay madaxweynaha Soomaaliya waa in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho waxaana la aaminsan yahay in hadalkaas uu markaasi ku xasuusinayo Xasan Sheekh Maxamuud mar uu dhahay in aanan dalka markaasi iyo sidoo kale siyaasadda qaran ee dalka in aan dib loogu celin sidii markaasi hore u dhici jirtayba in looga wada hadlo wadamada markaasi aan Soomaaliya ahayn ee dibadda madaxweyne Deni ayaa ku adkeysanaya in shirkan aan lagu qaban Muqdisho ama Garowe xataa aan lagu qaban taabadalkeeda la isla aado magaalada Nairobi ee caasimadda Soomaaliya warar hoose aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in filla Soomaaliya ay diyaarinayso qorshe culus oo markaasi ay ugu talagashay sidii madaxweynaha Jubbaland shirka loogu soo celin lahaa madaxweynaha Puntland loo dooni lahaa balse wararka waxay sheegayaan in filla Soomaaliya ay sidii hore wax ka bedelayso isla markaana ay isku dayayso in xaaladda faraha ka sii baxaysa ay dejiso maadaama madaxweynaha Puntland haatan uu keenay qodob aanan markaasi macquul u noqon doonin
in ay fuliso filla Soomaaliya kaas oo ah in shirka lagu qabto meel ka baxsan gudaha Soomaaliya. haddaba wadahadalkan oo markaasi ilaa haatan u socda madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxaa lagu soo warramayaa in marka ka dambaysa uu sii adkaanayo maadaama Siciid Cabdulaahi Dani oo haatan mudxileedkiisa wax badan uu uga dhiman yahay marka loo eego Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wararka waxa ay sheegayaan in uu keenayo qodobo markaasi culays ku noqon kara filla Soomaaliya waxaana wararka ay sheegayaan in uu iska diiday in uu ka tanaasulo qodobada markaasi qaar. madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa isku dayaya in haatan xaaladda uu dejiyo isla markaana khadka telefoonka uu ku wada hadalsiiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani isagoo qorsheynaya in ay safar si wada jir ah ugu tagaan magaalada Garowe halkaasina uu ku wada kulansiiyo madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani.